Laba saaxiib ayaa socod ku maray meel cidla ah oo 2 maalmood ah. Qorraxdu aad bay u gubaysay, jiilaalkuna aad ayuu u darnaa. Cagtooduna waxay ku garaacayeen ciidda adag ee baahida ilaa ay labada saaxiib ka gaadheen harraad, daal iyo rajo beel. Dariiq ka wanaagsan oo laga gaadho goobta aaminka ah oo biyo leh. Labada saaxiib ayaa murmay marka mid ka mid ah ayaa dhirbaaxay kan kale, wuxuuna yidhi tani waxay ku qoran tahay ciidda. Waxaan maanta la murmay saaxiibkay, isna wejiga ayuu iga dharbaaxay. Kadibna socodkoodii ayay sii wateen ilaa ay ka gaadhaan meel ay biyuhu ku yaaleen. Sidaa darteed labadii saaxiib ayaa tacbay ilaa ay labadii saaxiib u tageen dabaal. Laakiin qofkii dharbaaxay ma aqoon dabaasha oo wuxuu ku sigtay inuu dhinto. Sidaas darteed saaxiibkiisii wuxuu ku degdegay badbaadintiisa kadib baxsashadiisiina qofka ayaa la eedeeyay. Wuxuu ku sigtay inuu jeebkiisa ka soo baxo mindi yar oo ku qoran dhagaxa maanta saaxiibkay naftaydu waa badbaadiyay. Saaxiibkiis wuu yaabay, wuxuu yidhi maxaan dharbaaxada kugu qortay ciidda? Wuxuu u qortay inay badbaadiso noloshaada dhagaxa. Markaa uga jawaabay sababtoo ah tani waa shaqo weyn oo asal ah. Sidaas darteed waxaan ku qoray dhagaxa si ay u adkaato tiradiisu. Waan ka helay sheekadan maxaa yeelay waxaan ogaaday inuu jiro khilaaf jacayl ururada cadaawad. Saaxiibada ugu fiican ayaa ah kan dembigaaga ilaaway oo tilmaamaya astaamahaaga ugu quruxda badan.